wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay oo idin hayo calanka TV qodobada aad ku daawan doontaan wararkeena habeenimada waxaa kamid ah ciidamada cirka Soomaaliya oo dib loo soo celinayo iyadoo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya uu hogaamiyay madaxweyne Farmaajo oo heshiis la saxiixatay dalal aad u waaweyn oo ka tirsan kuwa caalamka ugu awoodda badan kuwaas oo la qorsheynayo in dhawaan dib u soo celiyaan ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyadoo wararku ay sheegayaan in madaxweyne Farmaajo iyo kooxdiisa ay ka shaqeynayaan sida loo dhisi lahaa ciidamo tayo leh oo cirka u qaabilsan dalka Soomaaliya oo 30 sano ay u dambeeyay aan lahayn ciidamo cirka ah oo dowladda ay ku tashan karto. ciidamadan ayaa la sheegayaa in loo dhisi doono saldhigyo waaweyn ee laga dhisayo gobolada dalka qaar. haddaba halkee ayaa laga dhisayaa gobolka ugu horeeya ee ciidankaasi la doonayo in bayskiisa ama saldhigiisa laga sameeyo iyo qodobo kale ayaan idin wadaagi doonaa. dhinaca kalena dowladda Turkiga ayaa Soomaaliya sida wararku sheegayaan waxa ay siinaysaa maraakiib dagaal xooggan. wararkan ayaana ka imaanaya dalka Turkiga oo Soomaaliya xiriir dawlad leh waxay sheegayaan in maraakiibtan ay yihiin maraakiib dagaal iyadoona dhawaan saraakiisha qaabilsaneed maraakiibtan tababar loogu soo xiray dalka Turkiga. warbixintan ayaan waxaan ka soo xiganay website kamid ah kuwa afka dheer dowladda Turkiga oo la yiraahdo Anadolu oo si fiican uga faalooda arrimaha ciidamada iyo sidoo kale xaaladda siyaasadeed ee dalka Turkiga iyo dalalka ay caawiso. website-ka ayaa warbixinta ku sheegay in dowladda Turkiga ay qorsheynayso in ciidamo iyo maraakiib dagaal ay ku wareejiso dowladda federaalka ee Soomaaliya iyadoona ciidamo aad u khalabeysan u tababartay ciidanka badda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. dhinaca kalena maamulka Hirshabeelle ayaa si kulul uga jawaabay shalay ka soo baxay golaha wasiirada uu hogaamiyay ra'iisul wasaare Roble arrintaa oo si fiican uga jawaabay madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabeelle ayaa imaatay xilli Roble uu isku dayayo in qalaaso uu ka abuuro isagoona dhaleeceynaya ciidamadii la geeyay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan si ay ula dagaalamaan ururka Al-Shabaab sidoo kalena ay uga hortagaan qalaasaha ka soconaya gobolka ay geysanayaan maleeshiyo beeladyo ka dhashay deegaankaasi kuwaas oo diidan in dalku iyo gobolku intaba ay xasiloonaadaan weeraro xooggan ka geysta. iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo ra'iisul wasaare Roble uga dagay qorshaha quracan uu ka damacsan yahay maamulka Hirshabeelle. gudoomiyahan ayaa si kulul ugu jawaabay sidoo kale ra'iisul wasaare Roble isagoona sheegay isaga iyo kooxdiisu inay damacsan yihiin inay qalalaaso ka geystaan deegaanada Hirshabeelle balse uusan ka yeeri doonin in magaalada Beledweyne uu isagu mas'uul ka yahay dhammaan iyo guud ahaan gobolka Hiiraan uusan Roble wax tallaabo ka geysan karin maadaama uu yahay shakhsi ku fashilmay hawsha uu hayay qaranka Soomaaliyeed isagoona sheegay inuu dalal kale u dusiyay xogaha qaranka. ra'iisul wasaare Roble aan lagu kalsoonaan karin. qodobada iyo kuwa kale oo xasaasiya oo ay ka mid tahay dagaalka u dhaxeeya Ruushya iyo Ukraine ayaan barnaamijkeena si fiican ugu qaada dhigi doonaa. fadlan daawada haddii aad markii koowaad soo booqato channelkeena calanka TV subscribe oo furo gambalka si aad u noqoto daawadaha koowaad ee barnaamijyadeena. mahadsanid. ciidamada cirka Soomaaliya oo dib loo soo celinayo taliyaha ciidanka cirka Soomaaliya sareeye guuto Maxamuud Sheekh Cali Maxamuud Dablabeelood kursi diyaaradeed uu ku fariisto waxa ugu dambeysay Maarch 1978 xilligii uu duuliyaha ka ahaa diyaarad miig ah. ciidanka cirka Soomaaliya waxa uu ka tirsanaa in ka badan 50 sano dalka Soomaaliya oo haatan dagaal ku jira ururka Al-Shabaab malaha diyaarad dagaal oo dowladdu kooxahaasi kula dagaalanto balse dalal ku yaala bariga Afrika iyo saaxiibada Mareykanka iyo Midowga Afrika ayaa mararka qaar Soomaaliya ka caawiya howlgallada dhinaca cirka ah. dagaalada dib u soo celinta ciidamada cirka Soomaaliya waxaa socda dadaal dib loogu soo celinayo ciidanka cirka Soomaaliya oo 30 sano ka hor burburay balse waxaa jira caqabado taagan. caqabadahaasi oo ay ka mid yihiin cunaqabateynta dhinaca hubka ee qaramada midoobay ay saartay oo aan Soomaaliya laga qaadin wadanka aan wali ka soo kaban dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya oo aan wali yeelan dhaqaale ku filan oo ay hubka ay doonto ku soo iibsan karto iyo amniga wadanka oo ay dowladdu si buuxda gacanta ugu hayn. taliye Maxamuud Sheekh waa 75 jir wuxuuna hogaamiyaa ciidanka cirka Soomaaliya wuxuuna rajeynayaa inuu ciidamada Mareykanka iyo Soomaaliya ka caawiyaan sidii ay dib u dhisan lahaayeen ciidamada cirka iyadoo ay markii hore ahayd kuwa ugu awoodda badan qaaradda Afrika. ciidanka cirka Soomaaliya oo la aasaasay 1954 ayaa mar ku faani jiray lahaanshaha diyaaradaha dagaalka ee MiG 17 iyo MiG 21 dagaalkii ay Soomaaliya la gashay Itoobiya 1977 oo ay taageereysay midowga Soviet
iyo dagaalkii sokeeyay ee dalka ka qarxay waxay sababeen inay kala tagaan ciidanka cirka wixii ka dambeeyay 91dii. ururka al-shabaab ayaa wixii ka dambeeyay 2000 bilaabay inay khatar ku noqdaan dowladnimada taagta daran iyo shacabka Soomaaliyeed. ciidanka cirka ee Soomaaliya ayaana dib loo dhisay 2015. Taliye Maxamuud waxa uu sheegay in ciidanka cirka Mareykanka diyaarado duuliyahooda leh iyo kuwa duuliyaha lahayn ee ilaa iyo hadda sirdoonku adeegsadaan oo isticmaalaan saldhigyada ciidamada cirka ee Beledoogle Muqdisho kaga beegan waqooyi galbeed. howlgallada la dagaalanka argagixisada ee Mareykanka ayaa hakad ku yimid wixii ka dambeeyay markii uu Trump bishii January 2011 amray inuu ka baxayo gebi ahaanba ciidamadooda ku sugan Soomaaliya ay ka soo baxaan. Mareykanka Beledoogle wuxuu u isticmaalaa howlgallada ciidamada gaarka ah iyo tababarada uu siiyo guutada danab ee ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. taliska Mareykanka ee Afrika ee AFRISOM ayaa ka gaabsaday inay ka jawaabaan su'aal laga weydiiyay iskaashiga sirdoonka mustaqbalka waxa uu qorsheysan oo ay doonayaan inay ka qabtaan ciidamada cirka Soomaaliya, balse waxay hoosta ka xariiqeen si ay Mareykanka uga go'an tahay xaqiijinta amniga dalka. Taliye Maxamuud wali wuxuu ku labisan yahay tuutaha buluuga ah oo ay ka muuqato astaanta ciidanka cirka Soomaaliya iyo caleemad dahab ah oo darajadiisa muujinaysa, wuxuuna rajeynayaa inuu mar aan dheereen u arko ciidamada cirka Soomaaliya oo si buuxda u soo noqday si ammaanka dalkiisa hooyo uu noqdo mid la isku haleyn karo. madaxweyne Farmaajo ayaa dadaal ku bixinaya in ciidamada dalka gaar ahaan kuwa cirka ay hadda soo laabtaan xilli uu dowlado shisheeye oo Soomaaliya xiriir fiican la uu ka mid yahay Turkiga, Russia iyo Ukraine oo ka codsaday inay ka caawiyaan ciidamada cirka. ciidamada Soomaaliya Mareykanka marka laga reebo waxay iskaashi dhinaca ciidamada cirka ah la leeyihiin oo loo golleeyahay dib u soo celinta ciidamada cirka Soomaaliya iyo hubkooda ay Soomaaliya la gashay dalka Pakistan. dhinaca kale gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte oo ka digay qorshaha uu damacsan yahay ra'iisul wasaare Roble. gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolkaasi ayaa ka hadlay xaaladda gobolka Hiiraan iyo hadalhaynta xooggan ee ka dhalatay ciidamada la geeyay magaalada Beledweyne. gudoomiyaha Cali Jeyte ayaa sheegay in ujeedada ay dowladda federaalka ah ciidamada u keentay Beledweyne ay tahay in shacabka u adeegsadaan. Jeyte ayaa siyaasiyiinta dhowaan shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ee ka soo jeeday Hiiraan ku tilmaamay inay yihiin kuwa baagamuuda ah isla markaana uu ku tilmaamay in warkooda uusan ahayn meel ka soo qaad. Jeyte ayaa dhanka kale ra'iisul wasaare Roble ku eedeeyay inuu siyaasadeynayo ciidanka la gaarsiiyay magaalada Beledweyne, wuxuuna si adag uga soo horjeestay shirka golaha wasiirada ee lagu saaray in dib loo soo celiyo ciidamada la geeyay magaalada Beledweyne. wuxuuna shaaciyay qorshaha uu ra'iisul wasaare doonayo inuu doorashada ugu wareejiyo magaalada Beledweyne. hadalka gudoomiye Jeyte oo ku soo aadayay xilli uu muran xooggan ka taagan yahay ciidamada dowladda federaalka ah geysay magaalada Beledweyne, kuwaasi oo la rumaysan yahay in loo adeegsanayo boobka doorashada 25 kursi ee taala magaalada Beledweyne. dhinaca kalena Hirshabeelle oo ku gacan saartay go'aanka xukuumadda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Xagar Dabageed ayaa si adag uga hor yimid go'aanka ay shalay dowladda ka soo saareen golaha wasiirada xukuumadda Roble oo laga jeediyay magaalada Beledweyne. golaha wasiirada Soomaaliya ayaa shalay amray in ciidamadaasi dib loogu soo celiyo oo muran badan dhaliyay, iyagoona shalay sheegay in loo adeegsan doono dano siyaasadeed taasi oo ay ku qeexeen mid lagu dilayo sumcadda ciidanka qaranka Soomaaliya. Yuusuf Dabageed oo la hadlay BBC ayaa mar kale u sheegay ujeedada laga leeyahay ciidamada la geeyay Beledweyne inay tahay in dib ay u furaan wadooyinka shacabka go'doomiyeen ee soo gala gobolka Hiiraan. sidoo kalena wuxuu markii ugu horeysay qiran ee ciidamada tagay Beledweyne lagu soo diray amar uu leeyahay madaxweyne Farmaajo kadib markii madaxweyne Cali Guudlaawe ay ka wada hadleen arrintaasi. sida uu sheegay madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabeelle ayaa carabka ku adkeeyay in ciidamadaasi loo adeegsan doonin xiisada ka taagan magaalada Beledweyne maadaama ay mugdi badan ku gadaaman yihiin ujeedka ciidamadaasi la geeyay magaaladaasi. ugu dambeyn waxa uu sheegay madaxweyne ku-xigeenka dad siyaasiyiin ah oo ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka inay marxaabinayaan arrintaasi ayna boorin iyo bogaadinayaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee u taagan har iyo habeen inay cadawga ka difaacaan shacabka Soomaaliyeed. haddaba halkaa waxaa inoogu eg wararkeennii habeenimo. fadlan daawada haddii ay tahay marka koowaad aad soo boqoto janaalkeena Calanka Media, subscribe dhaw faraga mobilka si aad u noqoto daawadaha koowaad ee barnaamijyadeena.